inta la xaqiijiyay laba ka mid ah xujayada Soomaalida ayaa waxa ay ku dhinteen tiro kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray kadib markii isbuurasho ay shalay ka dhacday Mina oo qiyaastii 5 kilomitir u jirta magaalada barakaysan ee Maka. Xujayada geeriyootay waxaa magacyadooda lagu kala sheegay Xaaji Axmed Maxamed Saalax oo ku geeriyooday buurta Carafa iyo Xaaji Xasan Maxamed Jibcaale oo asna ku geeriyooday Mina. saraakiisha amaanka ee Sacuudi Carabiya ayaa sheegay in laba qof oo Soomaali ah ay geeriyoodeen iyagoo gudanayay waajibaadka xadka. geeridoodaasna waxa ay sheegeen inay ka dhalatay kadib isbuurasho ka dhacday Mina. waxa agaasimaha waaxda adeega dadweynaha ee Sacuudi Carabiya waxa uu sheegay in dadkaasi ay halkaasi ooli doonaan ilaa iyo inta dadka muslimiinta ah ay ka soo dhameysanayaan gudashada waajibaadka xajka ee ay wili ku guda jiraan. waxaana uu sheegay in ay isbuurashadaasi ka dhalatay dhimashada labadaas qof oo Soomaalida ah. ugu dambeyntiina Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa in ay meel marisay sharci waa 1,000 guri oo dheeraad ah ay kaga dhisanayso daanta galbeed ee dhulka Falastiiniyiinta. maamulka Israa'iil ayaa shaaca ka qaaday in gudaha Falastiin laga dhisayo 1,004 guri oo horle. qorshahan ayaa waxaa qalinka ku duugay guddiga wasaaradda gaashaandhigga ee Israa'iil. 370 dhismooyinkaasi kamid ah ayaa laga dhisayaa goobta lagu magacaabo Adam oo bishii 7 ee sanadkan lagu tooreeyay 3 qof oo Israa'iiliyiin ah. 600,000 oo qof oo dhalasho ahaan ka soo jeeda Israa'iil ayaa ku nool deegaanada la haysto ee ka tirsan daanta galbeed iyo bariga Qudus ee dhulka Falastiiniyiinta tan iyo sanadkii 1967.